dhinaca kalena aqalka sare ee Soomaaliya ayaa shalay guddi u saaray dhexdhexaadinta labada dhinac ee isku haya khilaafka siyaasadeed ee Muqdisho. Guddigaas waxaa ka mid ah Senator Maxamuud Axmed Maxamuud Mashruuc. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayuu iigu warramay. bismillah jaamac horta waa mahadsan tahay runtii naga guddiga joogtada golaha aqalka sare 17 Maarso ayay shireen arrintan shir aan caadi ahayn kulan caadi ahayn ka galeen maadaama runtii baarlamaanku laba aqal ha ahaado laakiin baarlamaankii federaalka Soomaaliya weeye issue noocan oo kale markay yimaadaan de waajib dastuuri nasaaran baaja oo ah inaan wax iska niraahno guddigii adigu falanqayn dheer kadib waxa la isla qaatay adigu guddi in loo saaro oo gudoomiyaha aqalka sarena uu hogaamiyo guddigaas oo 7 xubnood ah howshaasi runtii 17 habeenkeediiba waanu bilownay oo xalay ahayd waxaanu aragnayna runtii walaalaheen qaybihii ay quseysay arrintan gaar ahaan golaha shacabka oo gudoomiyihii Maxamed Usmaan Jawaari iyo gudoomiye ku-xigeenkiisii mudday labaduba waan aragnay muhiimaduna waxay ahayd marka hore bal xogta rasmiga ay jirtaa inuu guddiga ogaado waana runtii meel fiican ay wax marayaan waxaan rajaynaynaa insha Allah in sida ugu dhaqsaha badan laga gudbo khilaafkaasi wax walbana sidoodii hore lagu celiyo khilaafka aad isleedahay waa laga gudbayaa makan la isku hayo tiradu waa dhan tahay iyo ma dhamo mise waxaad leedihiin mooshin bayaan la keenin khilaafka asalkiisa wuxuu ahaa waa mooshin la keenay buu ahayd annaga hadda technicality-ga ma rabno inaanu ka hadalno oo waxa weeye waayo shaqadii way socotaa annagu muhiimaddu waxay tahay in golihii shacabka lagu celiyo xaaladiisii khilaafka ka hor siduu ahaa kadibna wax walba oo jirana xeer hoosaadka iyo dastuurka dalkana loo maro iyadoo laga odayeenayo oo de mas'uuliyadda iyo tanaasulka mar walba la muujinayo dalkana loo turayo intaas hadafkeena ahaa odayaashii aan la kulanana intaa wayna la garowsadeen meel fiican in wax marayaan oo rag waa rag mas'uuliyiin ah oo dareensan dalka inuusan u baahnayn in ay wax khilaaf siyaasadeed horle hadda ay abuuranto iyadoo la marayo runtii waqti adag oo rabo dalkii in amnigiisi la adkeeyo wax badan la qabto Dr. Mashruuc waad ogtahay senator baa tahay baarlamaanka howlihiisana waxaa ka mid ah isla xisaabtan in haddii madaxda sare ee dalka iyo cid kasta oo hawl loo igmaday dadka u haysa loo bogi waayo shaqadooda ama dhaliil laga keeno in lala xisaabtamo oo ay moshinku uu yahay nooc ka mid ah marka ma waxaad leedahay waxaanu ku shaqaynaynay in mooshinkii laga noqdo oo aan mooshinka la sii wadin oo sidii marka hore baarlamaanka u ahaa loo sii shaqeeyo maya anagu sidaa ma oran walaalo waxa weeye arrintan hadafku wuxuu yahay wixii mooshin golaha shacabka waxaa haga xeer hoosaad baa haga gole ka tirsan ama aqal ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya xeer hoosaad gaara iyaga ay leeyihiin oo marka mooshin la keeno ay u maraan bay leeyihiin waxaan u daynaynaa taas in ay habkaasi loo maro waana sida hadda ay ku socoto iyagu dhan ay ogol yihiin inay u hoggaansamaan xeer hoosaadkooda iyo dastuurka federaalka Soomaaliya annaguna hadda inta aanu wadnay waxa ahayd in la isku soo dhaweeyo afkaarta oo qawaaniintana loo hoggaansamo oo dalkana runtii laga ilaaliyo wax kasta oo xanaf keeni kara laga ilaaliyo maadaama mas'uuliyiin yihiin miidiyahana waxa la isku marmarin ay noqoto si hoose loo wada hadlo wixina sharci markaa lagu kala baxo hadafka ugu weyn oo annagu aanu dareemaynay oo qodobka dastuuriga ahna waajibkana saaran ahna runtii inaanu markaysaanu kala xugacaan aqalkii uu soo farageliyo oo uu at least u kala dab qaado dadkii ay markaas aanu isleeyahay way ka dhaxaysaa arrimaha khilaafka roolkaas baa ahayd waxa aanu qaadanayna haddana runtii meel fiican ay marayaan ma raba inaan ka hor dhaco because waa wax hadda socda oo aan isleeyahay saacadaha ama maalmaha soo socdaba insha Allah laga gudbi doono dadku waxay senator isweydiin karaan mar haddii aad dhexdhexaadin gasheen inaad u kala dabqaadaan madaxda aad ku tala gasheen wixii la og yahay oo cad ayaa laga garqaadaa mise waxaa xaal mastuur unbaad rabtaan inaad ku dhamaysaan waxaan filayaa in ay caddahay anagu hadda wixii ay iyagu xeer hoosaadkooda ay ku respect gareeyaan baanu anagu ku dul ilaalinaynaa mooye oo aanu kaga warqabaynaa mooye wax kale oo xal oo magic ah anagu aanu jeebka ku wadano oo ragga aanu leenahay iskugu imaado halkaa mara ma jiraan iyaguna taasay ogol yihiin taasaana hadda lagu wada jiraa guddigan runtii